xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa maanta shaaciyay inay soo gabagabowday qaadashada kaarka codaynta doorashada golaha dhexe ee maalmihii u dambeeyay ka socday xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye ku leeyahay magaalada Hargeysa. Xogayaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Mustafa Waxdad oo ay weheliyaan mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga kulmiye ayaa sheegay xubnaha aan qaadan kaarka codaynta inay ka qaadan karaan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. halkan waxa ka socday kaar bixintii golaha dhexe ee shirweynaha golaha dhexe lixaad kaar bixintii maanta ayay ku eg tahay xarunta kaararka lagu bixinayay wixii maanta ka dambeeya berito qofkii aan maanta kaar ka qaadan xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye wuxuu soo doonanayaa Boorama ayuu soo doonanayaa shirkina 25 aanu cilaaminay ayuu furmayaa oo berri mooye saa dambe ah waxaan idinku yeernay warbaahinta inay idin gaarsiisaan xubnaha golaha dhexe in maanta kaar bixintii halkan ay ku xidhmayso qofkii aan qaadan kaarkiisa loo qaadayo Boorame uu ka qaadan doono intaas baan idinku yeernay inay naga gaarsiisaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Axmed Nuur Ciise Maxamed Bulsho TV Hargeysa.